inaan halkan isugu nimaadno inagoo la xijeclo kale qarankeena u turayna horumarkeena tallaabooyinkan horumarkeena ku higsanayno oo qayb ka tahay inaynu si cadaalad oo garsoor wanaagsan ugu xaqsooro dhalinyarada aqoon-yahanka ah ee naga soo dalbato shaqooyinka xilligii waxay ku beegantay tii hore aynu qaadanay aan xafiiska imi anigu sabab ay u dhacday mooyiyada oo lagu dhici waayo oo liisku inta la xayisiiyay 6 bilood uu yaalo liiskii dadkii soo codsaday soo dalbaday shaqooyinku ayaa xafiiska aniga gudoomiye la magacaabo shaqo taalana deedad indha ka qarsato culays iyo ceeb kasta halaad haddaad cadaalad sugayso wax kasta oo ceeb ah kaga yimaada laakiin waa inaad aad u cadaalad ya oo de quraanka iyo diinta ku jirta mid wax canaantiisa ka baqan haddaad adu hanuunsantahay marka waxaan shiri warday haddaan waxba meesha ay cadaalad sugayso ku dhac oo dhaqaaji oo inuu dhaqaajina waa run sida Cabdi Sheegay waxda recruitment ka hay'adda shaqaaluhu agaasimo waaxidkaasi ma jirin waxa kamid ahay dadkii marka lagu soo xulay processka laftiisa alxamdulillah maanta waaxdi baa lead garanayso inoo jirta oo hawsha oo dhan maartay leadka waxaan rajaynayaa idinku la dardaarmayaa iyadoo dhaar la idinku dhaarin doono in cadaaladda sugaysaan oo qaranka uga wakiiltihiin dad u cuntama oo xula oo sida loo qoray positionada loo dooriyo wasaaraddu soo dalbadeen ugu xushaan kitaabka ilaahay baa la idinku dhaarin doonaa biidnillaahi tacaala anaguna waxaan idinku la dardaarmayaa ina ila aakhiradiina uga baqataan adduunyadiina ku ilaashataan ilaahayna subxaanahu wa tacaala kaga baqataan si lillaahiya ina arintaas 1500 ee soo dalbada shaqo ee dhalinyaro iyo aqoon-yahana ee 26 ka position soo dalbaday ee wasaaradda tamarta wasaaradda cadaaladda wasaaradda shaqagelinta gaashaandhigga wasaaradda qorsheynta hay'adda shaqaalaha dawladda maxadka shaqaalaha maaliyaddu kuma jirto maaliyaddu waxaan soo galeynaa waxa weeye maadaama lacagtan la siinayo mushaharka iyo banku bixinaya waxay martaa wasaaradda maaliyadda iyo xisaabaadka iyaga marka anagu check ma saxiixano iyaga saxiixa iyaga martaa xisaabaadka martaa maaliyadda martaa marka sababtaas aan u soo gelinay accountable in loo noqdo iyadana waa sababta waayo haddaan sidaa la isugu celino check and balance systemka loo ilaalin qarankeenu dhismi maayo oo qofba meeshu hay la sii jeesto marka anaga ku soo daray anaga go'aansaday oo ku soo daray oo wasaaradda maaliyadda waa cid ka joogta si ay ula socdaan lacagta bixinayaan sidee loo qaatay shaqaalaha lacagta siinayaan iyadoo haddana xisaabta World Bank ka baxaysa mashruucan marka dardaarankaygu waxa weeye ina dadaal badan la gelisaan daacadnimada ku shaqeysaan waa la idin soo hadli waxba la idin soo sheegi dhagaha ka furaysta idinkoo ilaahay ka baqayo xusuusan dhagaha ka furaysta haddii cidi faragelinayso dee anaa kii weynaayo faragelin lahaa xaraam ma dhacayso qof idinku soo faragelin karaa ma jirto nidaamkaasaan aynu doonaynaa wixii inaynu qarankeena ugu adeegno inaynu ku wadno si dhalinyaradu ugu qanci karayso iyo aqoon-yahankuba in wixii kii waayana uu ku qanco kii helaana inuu cadaalad ku helo cidi keenin ama reer keenin ama dana kale lagu keenin inuu aamino taas biidnillaahi tacaala waxaan jeclahay qof waliba kitaabka hor yaala inuu gacanta saaro waxa igu wallaahi oo igu billaahi oo igu tallaahi inaan shaqo xulista qorshaha loo qaadanay si daacad oo la kacabsi leh aan uga soo baxayno annagoo u turayna qarankayaga ilaahay kaga cabsanaya ciddii cadaaladda ku soo baxda ee xaqsiyana aan ugu garsoori doono inay ku soo baxdo aad baa mahadsantihiin